halkan Warar TV daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya caalamka qodobada aad warkan ugu daawan doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya oo la soo baxay dardar xoogle iyo roob la oo laga dalbaday in degdeg uu xilka u wareejiyo warkanaga ayaad ku daawan doontaan waxaa sidoo kale warkan qayb ka ah xir ilaalinta qaranka oo dalbatay in baaritaan lagu sameeyo xafiiska Rooble iyo Al-Cadaala xilli Rooble loo haysto kiis la xiriira Igraan Tahliil Faarax waxaad warkanaga ku daawan doontaan Al-Cadaala oo isagana kiiskaasi qayb ka ah wararka ugu dambeeya ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo ra'iisul wasaaraha cusub u dalbaday in saacado yar gudahood lagu wareejiyo xilka ra'iisul wasaaraha dalka wararka ugu dambeeyay daawadayaal u diyaar garooba aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa la yimid dardar xoog leh wuxuuna dalbanayaa in xafiiska degdeg loogu wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorsheynaya in maalmaha sii socda uu xafiiska sii joogo balse arrintaasi waxaa ka diiday ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha magacaaban oo la filayo in dhawaan la horgeeyo golaha baarlamaanka ayaa loo weydiin doonaa codka kalsoonida wuxuuna degdeg u soo magacaabi doonaa golihiisa wasiirada xukuumadda sidaas oo ay tahay dadka qaarkii ayaa si weyn u sugaya qaabka loo soo dhisi doono xukuumadda federaalka Soomaaliya qaabka ay u shaqeyn doonto iyo sidoo kale ujeedooyinka ay kala yihiin maamulka haatan xukunka la wareegay si kastaba arrinta degdega isla markaana la yaab kale waxay tahay waa in Maxamed Xuseen Rooble laga dalbaday inuu goor hore soo baneeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana loo baneeyo xilkaas uu la wareegi doono hogaamiyaha haatan Xamza Cabdi Barre ayaa qorsheynaya inuu xafiiska ka saarto Maxamed Xuseen Rooble isla markaana uu la wareego Xamza ayaa loo arkaa inuu yahay qof siyaasad ahaan fulin doona ajenda Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu dadka qaarkii ay ku eedeynayaan in xiriir wanaagsan uu la leeyahay maamulka Kenya si kastaba Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkiisa ayaa dadku ka dheehan doonaan shaqada uu qabto iyo wuxuu yahay balse waxa la isku raacsan yahay waa inuu yahay shakhsi ka tirsan Mujadid sidoo kale hoggaan wadaay iyo saaxiib leh hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe beesha caalamka qaarkood ayaa isla markiiba ka carooday markii ay maqleen inuu yahay shakhsigii ka shaqeynayay doorashooyinkii Jubbaland isla markaana sida qaabta daran u maamulay codayntii ka dhacday Kismaayo shakhsigan oo jaamacad ahaan ka soo baxay magaalada dalka Yemen ee Sanca jaamacad ku taala heerka bachelorka iyo sidoo kale heerka darajada labaad ee dalka Malaysia ayaa ku qasban inuu xilkaasi hogaamiyo hogaamiyahan ayaa waqti badan wuxuu ka soo shaqeeyay arrimaha doorashooyinka wuxuu UPD soo hogaaminayay in muddo la taliyay uu soo noqday hogaanka gobolka Banaadir xilliga Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale guddiga dhamaystirka doorashooyinka qaran ayuu ka soo shaqeeyay waana shakhsi aad ugu dhow Xasan Sheekh Maxamuud sida ay tilmaameen dadka sida wanaagsan u yaqaana shakhsigaas ayaa laga sugayaa waxqabadkiisa si uu awoodiisa u muujiyo waxa uu ku soo kordhin doono talada dalka iyo hogaanka iyo sidoo kale talaabooyinka ugu horeeya ee uu qaado si kastaba waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo shaqooyin uu ku hagaajinayo hanaanka dowladeed ee dalka isbedel socda iyo sidoo kale dadaalada u qorshaysan maamulkiisa si dad badan ay u xoojiyaan talaabooyinka uu qaadayo dadka qaarkii ayaa isha kusii wadahaya socdaalkiisa waxayna filayaan inay la yimaadaan talaabooyin kale oo ku aadan hanaanka dowladnimada dalka si kastaba qorshihiisa koowaad ayaa ah inuu xafiiska ka saaro Maxamed Xuseen Rooble oo dad badan ay u arkaan inuu yahay shakhsi ka danaystay hogaanka Soomaaliya isla markaana wax badan isdaba marsiiyay intuu xafiiska joogay xil wareejinta Rooble ayaa dad badan aad wada sugayaan waxayna ku tilmaamayaan inuu yahay shakhsi markaasi laga adkaaday dadaalkii iyo awoodii uu galiyay inuu kala dhantaalo ama kala qaybiyo siyaasadii nabad iyo nolol oo deganaanshaha lagu soo xukumay dhammaan nabad iyo nolol ayaa cadawgooda koowaad u arkay Maxamed Xuseen Rooble oo isaguna si weyn ugu dadaalay in maamulka Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka qabsado isla markaana uu soo laaban nidaamka nabad iyo nolol inkastoo hore ugu tirsanay nabad iyo nolol haddana dadka qaarkii ayaa dhaliilay talaabooyinka uu qaaday kuna tilmaamay nin danaysta oo markii xilka loo magacaabay kadib dagaal xooggan la galay nidaamka nabad iyo nolol si kastaba maalmaha soo aadan ayaa la sugayaa jawaabtiisa iyo talaabooyinka kale uu qaado walow dadka qaarkii ay dalbanayaan in hanaankiisa dib u eegis lagu sameeyo dadkuna ay ka fiirsadaan qorshaha iyo talaabooyinka la qaadayo sida loo tallaabsado talaabooyinka la qaada ayaa lagu xiri doonaa waxaana dadka qaarkii ay fahamsan yihiin in ujeedooyinkaasi ay yihiin kuwa ugu habboon ee lagu hagaajin karo hanaanka isbedelada doorashooyinka iyo qorshaha u yaala dalkan waxaana dad badan ay fahamsan yihiin in gaarista ujeedadaas ay tahay midda kaliya ee xal u noqon karta ujeedooyinka dalkan
si loo hubiyo qorshahaas, dadka qaarkii waxay aad isha ugu hayaan isbedeladii dalkani soo maray ra-iisul wasaarayaashii soo hogaamiyey wuxuu kaga bedelnaa karo Maxamed Xuseen Rooble iyo ujeedada ay tahay in dalkani lagu maamulo. Sida Soomaaliya loo maamulo ajandaheeda loo hagaajiyo ra-iisul wasaarayaasha shaqadooda u qabsadaan ayay ku xiraan doontaa shaqada dowladda, waana mid dadka qaarkii ay isha ku hayaan si loo abuuro xasilooni iyo kalsooni waarta oo dadka qaarkii ay u qaadan karaan mid ka mid ah tallaabooyinka ugu habboonaa ee dalka. Isjiid iyo sanado dhibaatooyin ee caqabada lagu soo jiray, haatan dalku wuxuu isku diyaarinayaa in doorashooyinka la qabto islamarkaana la hagaajiyo hanaanka isku duuga dowladda, hagaajinta qorshaha qaran ee u baahan in si weyn oo wadajira wax looga qabto, iyo hagaajinta tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee dalka taasoo u baahan in si wadajir ah loo dhaqaajiyo shaqada dowladda. Dadka qaarkii ayaa durba fahamsan in tallaabooyinka la qaaday ay yihiin kuwo iftiimin kara dalka iyo dowladnimadaba, in Soomaaliya ajandaheeda ay kor ka dhigto islamarkaana si muuqata looga wada shaqeeyo guulaha ay tahay in la gaaray. Sidaas oo ay tahay, Soomaaliya iyo dowladnimaduba waxay si weyn uga wada shaqeyn doonaan tallaabooyinka la qaaday, waxaana la abuuri doonaa xal siyaasi iyo mid waara walow dadka qaarkii ay u arkayaan hanaanka ugu habboon ee dowladnimada Soomaaliya. Iyadoo ay taasi jirto in qayb laga qaato isbedelka siyaasiga iyo xalka waara, haddana dadka badankoodu waxay u arkayaan fursadan mid kaloo muhiim u ah hanaanka diblomaasiyadeed ee dalkan, dhaqaajinta shaqooyinka qaran iyo sidoo kale in la abuuro kalsooni waarta. Iyadoo ay taasi jirto, haddana isbedelka dalkani uu galo ayaa noqon doonta mid kaloo laga maarmaan u ah isbedel siyaasi ah oo dalkani ka hirgalaya waxa dadka qaarkii u qaadanayaan tallaabooyinka ugu muhiimsan ee dowladnimada. Abuurista ajandahaas ayaa sidoo kale dadka qaarkii waxay fursad weyn ugu arkaan in isbedelka uu qayb ka qaato iyo xal waara oo dowladnimada Soomaaliya ay la timaado, taasoo abaari doonta hanaanka nabadgelyo, qorshaha isku xirka hanaanka nabadgelyada iyo dadaalada kale oo laga maarmaanka si loo abuuro xal waara oo siyaasiya. Inkastoo dadka qaarkii ay fursad wanaagsan u arkayaan tallaabada la qaadaa maanta ay tahay midda ugu horeysa ee nabadgelyada iyo dowladnimada taageeri karta, haddana dadka badankii fursadan waxay u arkaan midda kaliya oo abuuri karta xal waara, sidoo kale ka qayb qaadan karta nabadgelyada iyo dib u soo kabashada dalkan. Sanado rafaada kadib, Soomaaliya waxay u muuqataa mid haatan awoodda dowladnimada soo laabanayso, shaqada la qabanayana ay tahay mid u adeegaysa dalka iyo dowladnimada, waana shaqada ugu habboon ee u muuqata in hagaajinteedu ay tahay waajib dastuuri iyo mid qaran si loo hagaajiyo tallaabooyinka dowladda Soomaaliya. Iyadoo ay taasi jirto, hadba isbedelkii dhasha ayaa ah kan ugu horeeya ee u baahan in tallaabo xal waara ah loo qaado, walow dadka qaarkii ay aaminsan yihiin in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa kama dambaysta. In la helo fursadahaas oo kale, dadka qaarkii waxay u arkayaan hanaan nabadgelyo iyo mid u baahan in si wadajira loo wajaho xalka siyaasadeed ee dalkan. In Soomaaliya ay heerkaasi soo gaartana waxay qayb weyn ka qaadan kartaa isbedelada siyaasiga ah iyo waxa dadka badankii ay u arkayaan mid kale oo ka mid ah shaqooyinka ugu habboon. In guul lagu gaaro ajandahaas iyo in la abuuro xal siyaasi ah, dadka qaarkood waxay u qaadanayaan hanaan u baahan in si degdeg ah wax loogu qabto, walow dadka qaarkii ay fahamsan yihiin in ujeedooyinka siyaasadeed ee la helo ay si weyn u taageeri karaan isbedelada dalkan. In Soomaaliya ay dhisanto waxay qayb ka qaadan kartaa isbedeladii sanado soo socday, waxayna xoojin kartaa dadaalada kale ee dowladdu ay ku doonayso inay ku hagaajiso isbedelka gobolka. In xal waara loo helo dhibaatooyinka gobolka ka jira waxay taageeraysaa tallaabooyinkii hore loo qaaday, kuwaasoo u baahan in si wadajir ah dowladnimada Soomaaliya ay qayb mugla kaga qaadato. Soomaaliya sanado ay burbur iyo dhibaatooyin kusoo jirtay, haatan ay abuurto xasilooni waarta. Dadka qaarkii waxay tusaysaa fursadda kaliya ee dowladdu u haysato dhismaha hay'ado qaran oo tayo leh oo dalka iyo dowladaba lagu hogaamin karo, iyo yareynta dhibaatooyinka waqti dheer dalkani horyaalay. Sidaas oo ay tahay, Soomaaliya waxaa laga maarmaan u ah inay kasii shaqeyso ajandahaas, islamarkaana ay abuurto xal waara, taasoo dadka qaarkii tusaya wadada kaliya ee dowladnimada Soomaaliya ay kaga gudbi karto caqabadaha soo jiitamayay. In la abuuro kaalin dowladnimo iyo in la helo ajanda isku xiran oo dowladnimada Soomaaliya si weyn u taageeraya, qayb ay ka tahay isbedelada gobolka, waana waxa dadka badankii u arkayaan fursadda kaliya ee maanta Soomaaliya haysato si loo xaqiijiyo isbedelada, guulka gaarista tallaabooyinka muhiimka iyo waxa dadka badankii u qaadan karaan fursadda kaliya ee Soomaaliya ku abuuri karto xasilooni waarta.
iyadoo ay taasi jirto hadba isbedelka la sameeya ayaa dowladda si weyn u taageeri kara, waana tillaabooyinkaas kuwa ugu badan ee maanta qaadista u baahan. dadka qaarkiina ay u arkayaan fursada keliya ee lagu burburin karo caqabadaha Soomaaliya waqti dheer horyaalay. sidaas oo ay tahay guul laga gaaro tillaabooyinkaas ayaa dad badan taageeri karaan, waxaana loo arki karaa fursada keliya ee laga maarmaanka u ah qaranka iyo dalka Soomaaliyeed. si loo gaaro ajandahaasna muhiimad gaar ah ayay u leedahay hanaanka dowladnimada dalka. si kastoo Soomaaliya tillaabo qaado maanta, waxay taageeri kartaa hanaanka nabadgelyo ee dalka, taasina waxay si weyn u taageeri kartaa isbedelka soo suurtagala, waxaana dad badan aada u danaynayaan in laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo xal waara oo Soomaaliya hesho, waxaana laga warsugayaa tillaabooyinka la qaado. guud ahaan daawadayaal, intaas waxaan ogaag warka hore TV tan intaa markale kulmayna, waxaan kaga tegaynaa sidaa nabadgelyo.